Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa channelka nuxurka wararka aan kulanahay YouTube-ka. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal ku soo qaadan doonana. Barnaamijyadeena waxaa ka mid noqonaya madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo soo dhaweystay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Haddaba labada mas'uul waqtigan adag waxa ay noqonayaan saaxiibo siyaasadeed. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga tagay wado cidlaah oo aysan cidina joogin. Mucaaradka Soomaaliya ayaa waqtigan waxa ay u xaglinayaan madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Qaarkood ayaa la siiyay hanti fara badan si ay kaga haraan tartanka doorashada Soomaaliya. Haddaba falaqayn ayaa daawadayaal ku sameyn doona arrimahaasi oo idil. Doorashada ayaa sii soconaysa. madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu buuxsamay muddo 5 sano ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ahaa shakhsigii ugu adkaa ee si adag u mucaarada Farmaajo iyo kooxdiisa. Maxay arintani ka dhigan tahay? Waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal. Ha yeeshee inta aanan guda gelin, waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanaya muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambalaalkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. Markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya. madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waqtigan waxa uu muuqdaa shakhsi soo dhaweysanaya mucaaradka Soomaaliya, kuwaasi oo ka aragti duwan isla markaana si weyn u mucaarada aragtidiisa ku qotanta xukuumadda ama maamulidda dalka Soomaaliya. Farmaajo iyo kooxdiisa ololaha doorashada ayaa waxa ay markan ku dadaalayaan sidii ay u soo dhaweysan lahaayeen mucaaradka maadaama lagu guda jiro marxalad doorasho. dowladda Qatar ayay kala hadlayaan in lacago hanti ah loo ballan qaado mucaaradka si ay kaga haraan oo ay uga tanaasulaan tartanka adag ee kula jiraan Farmaajo ee madaxtinimada Soomaaliya. 5 sano kadib qiimeyn ayaa lagu sameeyay waxqabadka Farmaajo. 5 sano ayaa u go'day inta Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu qaab sharci ah iyo mid sharci darahba ku joogay villa Soomaaliya. inkasta oo wasiirkiisa maaliyadda uu qirtay in maaliyadda ay sagxadda gaartay, haddana waxaa muuqata in uu sidoo kale jiro farqi weyn oo u dhaxeeya xagga amniga, federaaleynta, dhaqaalaha iyo xataa arrimaha dibadda marka la qiimeeyo halkii uu 2016 ugu yimid iyo halka uu maanta 2022 uga tagayo. Haddaba waxaa la sameeyay isbarbardhig ballaaran iyo qiimeyn lagu sameeyay muddaxileedkan Farmaajo 2017 ilaa iyo 2022 oo aynu joogno iyo midkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2012 ilaa iyo 2016, iyadoo aan dul istaagi doono qodobo muhiim u ah dowlad dhiska Soomaaliya isla markaana lagu ogaan karo cidda wax qabatay labada mas'uul oo ugu dambeyntii lagu cabiri doono mid waliba meesha uu ugu yimid iyo halka uu wax uga tagay. amniga haddaynu ka bilowno September 10keedii 2012 markii madaxweyne Xasan Sheekh loo doortay madaxtinimada, Al-Shabaab waxay haysteen 80% koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. kaliya waxaa xor ahayd caasimadda iyo magaalooyinka ku teedsan sida Balcad iyo Afgooye. si dowladnimada iyo amniga loo baahiyo inta uu Xasan Sheekh joogay xafiiska, waxa uu shabaab ku qaaday 3 howlgal oo kala ahaa Shabeelle oo xor looga dhigay Muqdisho ilaa Jowhar, howlgalka Gorgor oo lagu xoreeyay 10 magaalo sida Xudur, Buulo Burde, Jalalaqsi ilaa Beledweyne, Ceelbuur, iyo howlgalka Badweynta Hindiya oo lagu qabtay 8 degmo oo u badan xeebta oo ay ku jireen Cadale, Marka ilaa iyo sidoo kale Baraawe. 5 sano ee Farmaajo xafiiska joogay waxa isbedelay istaraatiijiyadda dagaalka ee ciidanka iyo caqiidadooda. kooxda Farmaajo waxay xoogga saareen sidii ay u heli lahaayeen ciidan iyaga daacad u ah, iyada oo dib u habeen loogu markaasi marmarsiiyoonayo. waxa ay shaqada ka direen ilaa iyo 3000. heshiiska kaliya ay galeen waa mid ay dhalinyaro qafaal ugu kaxeeyeen dalka Eritrea, kuwaas oo qaarkood ku dhintay dagaalada sokeeye ee gudaha dalka Itoobiya ka holacaya.
hoggaanka ciidanka oo aqoon iyo khibrad lagu xulan jiray waxaa laga dhigay dhalinyaro aan hore loo tijaabin dhulna aqoon, waxayna xoogga saareen in ciidanka loo adeegsado xoog sheegadka beelaha, maamulada federaalka iyo shacabka. waxa ay dowladdu ciidan ku afgambisay Baydhabo, Beledweyne, Guriceel iyo Dhuusamareeb halka ay isku dayday Kismaayo. taasi waxay keentay in xoogga dalka iyo Al-Shabaab ay 5 sano ee tagtay isku haystaan shabeellada hoose sida Afgooye, Bariire iyo Janaale, ayna go'doomaan dhulna aan lagu tagi karin degmooyinkii uu xoreeyay maamulkii ka horeeyay sida Baraabe, Baydhabo, Xudur, Jowhar, Jalalaqsi, Buulo Burte, halka goobo kale ay ka baxeen gacanta dowladda sida Ceelbuur. dhanka kale madaxweynaha mudxleedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo haddaynu ka soo tagno madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu Al-Shabaab siiyay fursad ay qayb uga noqdaan nidaamka dowladda. waxa isa soo dhiibay ilaa iyo 70 saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan Xasan Daahir Aweys, Zakariya iyo Atam. dowladdan Farmaajo waxa isku soo dhiibay oo kaliya Abu Mansuur Robo, isna inta heshiiska looga baxay 15 oo taageerayaashiisa ahna dishay ayuu iminka ku xanuunsanayaa xabsiyadeeda, taasi oo muujinaysa istiraatiijiyadda kooxdan maamulka heesa federaalka iyo dib u heshiisiinta. haddaynu markaan eegno oo aanu ka soo tilaabno dhinaca amniga, madaxweyne Xasan Sheekh 2012 waxa uu dalka u yimid dastuur ay ku qoran tahay in uu dalka federaal yahay, balse aanu maamul dhisan jirin marka laga reebo Puntland iyo Somaliland oo 1991 madax banaani ku dhawaaqay, isaga oo go'aansaday in 4 sano gudaheed uu dalka ka hirgeliyo nidaam federaal ah lagu kalsoon yahay oo shaqeeya. markii uu xilka wareejinayay waxa uu sanad walba dhisay hal maamul sida Jubbaland 2013, Koonfur Galbeed 2014, Galmudug 2015 iyo Hirshabelle oo la dhisay 2016. dhanka dib u heshiisiinta, Xasan Sheekh waxa uu dhismaha maamuladaasi ku bixiyay waqti iyo dhaganuglaan. tusaale ahaan Jubbaland, dowladda Xasan Sheekh waxay adeegsatay dib u heshiisiinta IGAD ilaa markii ay aqoonsatay bishii Agoosto 2013 heshiis ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Koonfur Galbeed oo 3 maamul kala dhisatay waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh ku tagay socdaalo, isaga oo heshiisiiyay 44 beel oo degta hal maamulna uu dhisay. Galmudug oo sidoo kale 3 maamul ay ka jirtay. madaxweyne Xasan Sheekh si uu u qanciyo 11 beel waxa uu 5 jeer u safray Galmudug, halka Hirshabelle oo isdiidanayd gaar ahaan reer Hiiraan oo cabasho qabay si beelahaasi iyo labada gobol loogu qanciyo hal maamul. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu gobolka tagay 6 jeer, isaga oo muddo joogay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne, lana kulmay dhammaan hoggaanka dhaqanka iyo dhammaan beelaha heshiisna markaasi la gaaray. 5 sano ee tagtay Farmaajo iyo maamulkiisa waxaa caddaatay inay ka soo horjeedaan federaal oo ay rabaan dowladda dhexe oo lagu markaasi koobo awoodda, taasi oo horseeday in laga aamin baxo nidaamkooda oo ay soo baxaan codad inta ka carooday dalbanaya nidaam federaal ah. waxaa kale oo ay muddadaasi ku dhammaysteen weeraro ka dhana maamulada, waxayna xiriirka u jareen weliba cunaqabateeyeen Puntland iyo Jubbaland, halkay xoog ciidan ku qabsadeen Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. ciidamada toddobaadkan lagula wareegay Beledweyne ayaa raadkii ugu dambeeyay, iyada oo horey sidaasi loogu sameeyay Guriceel, xoogna lagu dhisay maamulada hadda ka jira Baydhabo, Jowhar iyo Dhuusamareeb. Farmaajo waxa uu xafiiska ka tagaya iyada oo baahi loo qabo in la isu soo doono maamulada federaalka ah. waxaa intaa dheer beelaha uu markaasi isku hubeeyay iskuna diray oo iyadana qaadan doonta dib u heshiisiintooda waqti dheer. dhaqaalaha haddaynu eegno, xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu yimid iyada oo dakhliga dowladda soo gala uu ka yaraa 40 milyan oo dollar, balse kalsoonida lagu qabay waxay keentay in canshuurta noqoto inta ugu badan ee miisaaniyadda. waxa uuna sameeyay miisaaniyaddii ugu horeysay burburkii kadib
isaga oo ka qaaday 35 milyan oo dollar ee 2012 waxa uu uga tagay 246 milyan oo dollar 2016 oo weliba ay la socoto dhammaan wixii xisaab xir ahaa. madaxweyne xasan sheekh markii uu yimid wuxuu GDP Soomaaliya ahaa 2012 1.2 boqolkiiba waxa uu uga tagay 4.4 boqolkiiba. shaqaalaha rayidka oo ka yaraa 1000 waxa ay gaareen afartiisa sano 6000. waxaa intaasi dheera heshiiskii uu la galay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta ee SMB qaybaha horena ee xukuumadda ka gudubtay ayaa maanta lagu gaaray marxaladda go'aanka maalgashiga iyo dowladda xasan sheekh si sare loogu qaado dhaqaalaha dalka iyo wada shaqaynta hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. dowladda Soomaaliya sameysay xilligii madaxweyne xasan sheekh waxay bilowday qorshe wada shaqayn hay'adaha dawliga iyo kuwa gargaarka oo ogolaanaya in ay kala saxiixdaan heshiisyada dheef wadaagta BBB. dowladda xasan sheekh waxay albaabada u furtay shirkadaha maalgashatada ah si ay dalka maalgashi ugu sameeyaan dadweynaha Soomaaliyeedna u helaan kobac dhaqaale iyo shaqo abuur. iyada oo taa laga duulayo ayay dowladda Soomaaliya waxay heshiis la saxiixatay shirkadda Favori oo markaasi laga leeyahay dalka Turkiga taa oo dib u dhis ku sameysay airportka Muqdisho iyo shirkadda Alberg ee iyana maalgashiga ku sameysay dekedda Muqdisho taasi oo kobcisay dakhliga ka soo xarun jiray dekedda. maanta dakhliga ugu weyn oo 60% miisaaniyadda dowladda uu ka yimaado dekedda iyada oo 2014 Soomaaliya ay dhoofisay 5 milyan oo xoolaha iyo arrimo kale. shantii sano ee uu farmaajo xafiiska joogay inkasta uu miisaaniyadda gaarsiiyay 700 oo milyan oo dollar halkii ay ka ahayd 246 milyan oo dollar haddana lacagtaas waa mid beesha caalamka laga helay oo waxaa hoos u dhacay midkii gudaha laga heli jiray. waxaa xusid mudan 4 sano ugu dambeysay lagama hayo xisaab xirka in ka badan 1 bilyan iyo bar oo dollar meesha ay mareen. dakhli ururinta korortay ayaa noqotay intii maamulkii hore canshuuri jiray oo la laba jibaaro halkii la ballaarin lahaa taasina ay keentay sicir barar iyo in ganacsatada ay shacabka ka jaraan lacagta ay qaadaan dowladda. Al-Shabaab iyo Daesh GDP halkii 2016 ahaa 4.4 boqolkiiba hadda waa 2.4 boqolkiiba. inta uu joogay farmaajo musuqa halkii ay Soomaaliya ka joogtay 176 2016 waxa ay gaartay 180 2021 oo ah heer aan waxba laga qaban karin. dadka ka hooseeya xariiqda faqriga halkii 2016 ahaayeen 62 boqolkiiba hadda waa 70 boqolkiiba. hal qof laguma darin shaqaalaha rasmiga ah ee dowladda taasi oo niyadda ka dishay shaqo abuurkii ay filayeen dhalinyarada Soomaaliyeed kana dhigtay da'yarta shaqo la'aanta 67 boqolkiiba. mana jirin maalgelin shacabka loo sheegay taa beddelkeeda waxaa antidhoorka qaranka uu baabiyay heshiisyo sharci darro ah oo ay maamulka farmaajo la galeen shirkado markaasi kalluumaysi ah isaga oo soo bandhigay musuqii ugu badnaa. guud ahaan daawadayaal waan geynta barnaamijyada channelka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan laagin oo subscribe inoo sar channelka furagan balaalka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doona nabadgelyo.